sawir muddo kooban ka muuqday maqaal lagu qoray bogga rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethopia ayaa muujinaya qaaradda Afrika oo tilmaamaysa dhulka Soomaaliya oo lagu daray Ethopia iyadoo Somaliland aanay ku jirin qariiradani. maqaalkani wuxuu ka hadlayaa xiriirka Ethopia iyo Masar gaar ahaan arrinta biyaha webiga Niilka kamana hadlayo waxa Soomaaliya ku saabsan waxaase isweydiintu tahay muxuu ka macno yahay sawirkani aanay ka muuqanin Soomaaliya ee haddana lagu calaamadiyay Ethopia. baraha bulshada ee Soomaalida ayaa durbaba sawirkani qabsaday hadalhaynta badanna ka dhexgeliyay iyadoo dadka ay fikrado kala duwan ka bixinayaan. marka aad sawirkan si fiican ugu kurgasho dalalka Afrika oo xududahoodu waa sida caadiga ah ee hadda loo aqoonsan yahay. maxaa keenay in Soomaaliya dhulkeeda lagu daray Ethopia? arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dadka Soomaalida ay si aad ah uga gilgisheen hadal uu sheegay dhawaanaysa wasaaraha dalka Ethopia oo uu ku sheegay in Soomaaliya, Ethopia iyo Eritrea hal dal isku noqon doonaan mustaqbalka. sawirkani ayaa sida khariirada ka muuqata gebi ahaanba aan Somaliland ku jirin dhanka Soomaalida iyadoo Somaliland khariiradeeda si toos ah uga madax bannaan. tallaabadani ayaa u muuqatay in Somaliland ay gebi ahaanba ay ka gooday isla markaana aanay dhulka Soomaalida khariiradan Ethopia ay ku muujinayso in dhulka Soomaalida ay Ethopia ay ka mid yihiin aanay Somaliland ka mid ahayn. laakiin su'aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay tallaabadani ay dowladda Ethopia ay sawirkani ku soo dhigtay iyo asbaabaha Somaliland ay uga dhex saartay waxaana loo odhan karaa waa ictiraaf dadban oo dowladda Ethopia xilligani ay ku muujinayso in dowladda Somaliland ay madax bannaani toos ah iyo aqoonsi caalamiya ay ka hesho dowladaha caalamka. tallaabadanna waa tii ugu horreysay ee dowladda Ethopia ay ku dhaqaaqdo sidii dowladda Somaliland ay u heli lahayd ictiraaf rasmi ah iyadoo 28 sano u dambeeyayba ay dowladda Somaliland dhammaanba waxyaabaha lagu aqoonsado dal hadday noqoto jiritaankiisa ay gebi ahaanba shuruudii looga baahnaa ay buuxisay. waxaana loo odhan karaa ayay yidhaahdeen dadka ardaroosa arrimaha siyaasadda geesku waa aqoonsi dadban iyo hannaan diblomaasiyadeed oo lagu aqoonsaday Somaliland.